halkani waa magaalada Hargeysa ee caasimadda Somaliland waxaa ku nool oo degan dad gaaraya ku dhawaad 2 milyan oo qof. Hargeysa waxaa maalinba maalinta ka dambaysa ku soo kordhaya tirada dadka degan iyada oo magaalo ahaan si balaaranaysa isla markaana si fidaysa. Magaalada Hargeysa bulshada ku nool waxaa haysata dhibaato guud oo saameyn xooggan ku yeelatay nolosha dadka taasoo ka sii daraysa marba marka xigta. iyadoo guud ahaan shacabka Somaliland ay doorashooyin badan safaf dhaadheer u galaan inay helaan xuquuqaha aasaasiga ah ee ay bulshadu xaq ugu leeyihiin dawladooda iyo cidda talada u haysa. caasimadda Somaliland ee Hargeysa 25 sanadood ee la soo dhaafay waxa ay dhibaato aad u weyn ka haysataa dhinaca biyaha iyadoo oo marar badan xukuumadihii kala duwanaa ee Somaliland ka soo talinayay ay ku fashilmeen inay biyo ku filan loo helo caasimadda Hargeysa ballanqaadyo badan oo la sameeyayna ay gabi ahaanba beenoobeen. waqti xaadirkan lagu jiro waxaa dadka ku nool magaalada Hargeysa qaybo aad u ballaaran oo ka mid ah soo wajahday xaalad aad u daran oo ka haysata dhinaca biyo la'aanta iyada oo qofka danyarta ee aan haysanin lacag adag oo uu biyo ku dhaansado aanay suurtagal ahayn inuu magaalada ku noolaado. hase ahaatee waxaa haatan shacabka ku dhaqan magaalada Hargeysa ee quusta ka taagnaa muddada dheer biyo la'aanta haysata soo gashay rajo cusub oo ay ka qabaan madaxweynaha cusub ee Somaliland ee dhawaan la doortay Muuse Biixi Cabdi. maxamuud haybaanu nahay ilaa gaar ahaan waxaanu nahay malhan hoosteeda ayaanu nahay wada ma haysano biyo ma haysano daryeel ma haysano dadaal ma haysano dawladdu war nooma hayso waagi barnaamijkiisa soo sharaxa wuxuuna leeyahay codka noogu rida kuwii hore waxba kamaanaan helin kana daynu noo dhaami karay inuu noo dhaami iyo in kala war ma hayno biyo la'aan baan haysa ilaa wadaadkaasi berigii uu dhintay baa noogu dambeysay in Xaaji Ibraahin ayaa biyo noogu dambeysay aad baanu ayaan u iilanahay aad subaxan saaka ah aqalkaygu biyo la'ay biyihii waan waayay markaan helana 60 baa layga siiyaa taangiga 4 badweeyaan taangigu 4 badweeyaan waa 60 kun taasana waliba helahaynin oo subaxaasa ka biyalaay oo biyo meel ay soo martay weydi dawladda cusub iyo ninkaayna biixi waxaan ka codsanaynaa inuu na eego oo uu saaka xaafadayada eego oo xaafad walba eego oo saaka waanu ducaynaynaa ducaanu garqaynu kuwii kala nooga roonaado ayaanu ilaahay weydiisanaynaa bismillaahi kariim ninkaasi biyaha noo keeno ninkaasi wadaha noo keeno ninkaasi meedkayga meel laga saaraha noo qabto ninka intaasaan ka codsanayna iyo waliba ducaan raacino annagu hadaan xaafadda maxamuud haybanahay annagu waan cabanaynaa tayar baanu leenay dad bukaanu leenay dad jilicsan baanu leenay dadaan awoodin biyahaba waanu leenay waxa weeyaan taangiga markaanu hello ay booyadu noo shubto waa 4 litir ama wax qaada 4 foostiya ban 6 laana laga qaada sidaas waliba abaal ku qabnaa halkii ay noo soo mari lahaayeen booyadu markuu roobku jeexo ana gacantayda iska rogo ugu yeedho dhagaxa idin hor yaalla ku buuxsaday dawladda waxba noo qaban tanaan waxba noo qaban tii horaan wali waxba noo qaban ina cigaal wax ka horeeyay oonu biyo cabnay oonu helayna ma jirto dawa ma qabno daryeel ma qabno caafimaad kuma haysano waxa liya waxa naga rag nooguma jiro oo dawlad nooga soo shaqayn maayaan oo dawlad waxba nooga keeni maayaan waxa weeyaan xaafadayadaasi danyar baanu nahay dawladda waxaanu ka codsanaynaa inay danyar baa ku nool xaafadda biyahaba aan heli karin oon haysanba waxa weeyaan dawladda waxaanu ka codsanaynaa cusub inay wax noo qabato inay hoos noo eegto waxa weeyaan dawladda cusub Allah barakeeyo tii horna teeni bay hayd iyadana khayr Allah siiyo laakiin dawladda cusub ee dhalatay waxaanu ka codsanaynaa hawlo badan baa jira daranyooyin baa jira waxa weeyaan miyiga bargi dhaweyto waa tii lagu caydhoobay reemiyigeeni waa kii caydhoobay xooli waa kuwii baxay hadday baxeen dadkii reemiyiga magaalada ay soo galeen dadkii hore magaalada dad badan baa dulman gaar ahaan biyaha aad looga cabanaya biyuhu waa kuwa noogu daran koomba biyo ma helo waa kuwa noogu daran harraad baan u go'nay waxa weeye dawladda hoose nama weydiiso waxa weeye dad baan booyadaha heli karin waxa weeye
in islaamahaysa sita iyo dumarka umusha ayaa afarta habeennimo la socda shirikaannada oo saqda dhexe la socda waxa weeye dhibaatadaasaa jirta waxa weeye laysma oga waxaannu nahay dad danyara dad aan biyaha heli karin baannu leenahay waxaannu leenahay dad dee hadday helaanna yacnii ay qaali ku yihiin waxaannu nahay dad muwaadila waxaannu nahay dad reer somalilaana waxaannu nahay dad reer hargeysaa waxaannu doonaynaa wuxuu dadka kale leeyahay in aannu yeelanno marka waxaannu u sheegaynaa madaxweynaha cusub muuse biixi cabdi xildiid ilaahay garabkaaga ha galo waananu ku hambalyaynaynaa codka waannu kuugu ridnay waxaannu jecellahay in aad noo qabato wax ilaahay waxaynu barinay dawladda inuu ilaahay nooga dhigo dawlad barakaysan oo gacan gashan oo shicibkeeda eegta oo dalka iyo dadkaba u daacada ayaannu ilaahay ka baryaynaa dawladdan dhalatay annagu haddaannu nahay xaafaddan laanta hawada khaas ahaan gurya samaba annaka biyo waxaa noogu dambeeyey cali asad naxariistii janno waasaca allaha siiye inankii baxsanaa eenu dhaleen muwaadilka ahaa ayaa biyo noogu dambeeyey ilaahay waxaannu ka rajaynaynaa kanna sidii cali asad ilaahay noogu sakhiray inuu isna alla noogu sakhiro ayaannu ilaahay ka baryaynaa dawladdan in ilaahay noo sakhiro biyana siiso oy shicibkeeda hoos u eegto oy dalka daacad u noqoto oy dadka daacad u noqoto oonay odhan buuxso imika foostadii waxaa naloogu shubaa 12 kun baa naloogu shubaa foostadii dadka nin helayay niman helaynba dadku waa leeyahay danyartaabu dadka u badan yahay bini'aadamku dee wala iska hoos waqtiyay ilaahay dadka waxa kala siiyo waxaanu salaamaynaa madaxweynaha cusub ilaahay xilka ha u fududeeyo oo ilaahay ha garab galo si wanaagsanna wuu u bilaabay inaan dawladdiisa waxyaalo badan oo aanu ku faraxnay ayaa uu ku bilaabay dawladdiisa oo ay ka mid tahay inuu musuqmaasuqa iyo qabyaaladda iyo dhaqan xumadaba inuu wax ka qabto ayuu bilaabay waxaanu rajaynaynaa in uu ogaado magaalada Hargeysa kala badhna in ay biyaha si hawl yar u helaan kala badhna ay la wareegayaan jarikaano oo jarikaanka 2,000 riyaal 2,000 shilin laga siiyo maareeyaha wakaaladda biyaha ee magaalada Hargeysa iyo farsamayaqaanada la sheegay inay ku hawlan yihiin mashaariicda qaabkii biyo loogu soo saari lahaa bulshada reer Hargeysa ee haraadku uu daashaday muddada dheer ayaa diiday inay wax xog ah ka bixiyaan shaqada ay u hayaan bulshada iyo halka ay marayso mashaariicda loogu talagalay magaalada Hargeysa in biyaha loogu ballaariyo isla markaana biyo ku filan loogu helo caasimadda Hargeysa haba dambayso in shacabka caasimadda Hargeysa loo helo biyo ku filan ee waxa u sii dheer halis kaga iman karta dhinaca caafimaadka biyaha loo soo dhaamiyo ee ay booyadaha kaga iibsadaan lacagta adag biyo-la'aanta ku baahday magaalada Hargeysa ayaa waxaa loo aanaynayaa sababo badan kuwaas oo ay ka mid yihiin dhinaca mas'uuliyiintii uu xilku ka saarnaa ummadda ee shaqada kowga ka ahaa doorkii culimada ganacsatada dadka qaranka wax u bartay madaxda dhaqanka haweenka iyo dhalinyarada oo gabi ahaanba ka gaabiyey inay si isku mid ah u doonaan in caasimadda Hargeysa loo helo biyo ku filan in badan waxaa shacabku ay isweydiiyaan magaalada Hargeysa si ay u hesho biyo ku filan miyaa loo waayay dhaqaale aqoon muruq iyo maskax mise waa laga hagraday أنا waxaan malaynay Hargeysa biyo lagama waayin laakiin waa la hagranaya oo dadkeeda hagranaysa cid walba way hagranaysaa hadii u malayn maayo intaas oo sanadood iyo intaas xukuumadood oo jiray hadii ay xog saar laayeen bal meel kale iska daayeen caasimadda ay biyo hesho bar hore biyo soo galin laay laakiin siyaasado kale iyo hagrasha ku jirta waxaan taa u soo jeedinayaa maanta xukuumadda imanka cusub mudane Muuse Biixi oo ballanqaadkiisii iyo siyaasaddiisii ay ku jirtay inuu Hargeysa biyo marka ugu horeysaba wax qabadkiisa koobaad uu ka dhigtay caasimadda biyaheedii la dhameystirayo ilaa intii Soomaaliland ay jirtay xukuumad kasta way ballan qaadaa xukuumad kasta waxay tiraa in markaan biyaha keenayna in markaan dadka dharginayna biyaha lama helo dhibaato badan ayaa ka jirta biyaha magaalada inta ugu badan waa biyo la'aadahay dhaqaale looma waayin fikir looma waayin hanti looma waayin waa la hakranayaa anigu sida aaminsanahay waa biyaha magaalada Hargeysa biyo la'aan xoogaa ka jirta
waxaanan arkaa ilaa 60kii intay Soomaaliya xorowday madaxweynihii ugu horeeyay ee magaalada Hargeysa u dhasha ayaa la doortay insha Allah bidmillaahi tacaala biyaha waa naloogu dadaali doonaa marka waxaanu madaxweynaha cusub ugu baaqaynaa iyo dawladdiisa oo hagaaya Muuse Biixi Cabdi isagoo ah ma garanaysaa nin aan filayo inuu xoggaal yahay ilaa SNMT waxaan leeyahay qofba taariikh ba ka hadha marka wixii ka haraya ee taariikhda adiga ka qormaysa waa inay noqoto insha Allah bismillaahi kariim Hargeysa marka la leeyahay waa dhamaanteed weeyaan Hargeysa oo dhan ilaa ay nawaaxideeda weeye ilaa ay Hargeysa agagaarkeeda eeriyada Hargeysa oo dhan ama tuulayaasha u dhow haato in aad biyaha insha Allah bismillaahi kariim ninkii wada gaarsiiya aad noqoto oo taariikhda ka taga marka waxaan u baahanahay biyo nadiif ah inaynu helo Hargeysa waxay u baahan tahay hadalkii kooban meelaha dooyinaysa hadal wax kama taro biyo nadiif ah ayaynu u baahanay taana waxa looga fadhiyaa dawladda waxaana leeyahay dadaal ama cid kale ka keen ama dhaqaalaha cashuurta la ururiyaha laga sameeyo biyo waa la sameyn karaa gabadha waxay tiri ninka xoog weyn inanteedu ka dhili lahaay uu akranaya dawladii hore way akradeen tan way cusubtay ka hortagmayno laakiin iyadana waxaanu eegaynaa bal inay hagrato iyo inay noqoto tii biyaha gaarsiin lahayd dalku waa wada biyo sida aqoontu ay sheegayso ama dadka aqoonta u leeyahay ay tilmaameen magaalada Hargeysa waa halka ugu biyaha badan leh Soomaaliland sida la sheegay laakiin waxa jirta hagrasho haddii ninka mas'uulka waddankan u ahay ama cidda madaxda u ahay ay fooqiyo waaweyn iyo guryo waaweyn ku nool yihiin xagga sarena laba taangi saaraan xagga hoosena laba taangi dhigtaan dadkii soo saaray u codeeyay ee ay mas'uulka ka ahaayeen jirkaanka biyaha la daba ordaan booyadaha waa ayaan darro waa cuqubo iyo inkaar dhacaysa laba kala darnaaday magaalada Hargeysa biyo ku filan ma hesho shanta degmaba waa cabanayaan bilaawada baahsan ma jirta biyuuna maalinta ka dambaysa way sii qaali garoobayaan waxaana Soomaaliland ku ceebaday 26 sano jirnay inaan wakaaladdeena biyaha oo mitir cubic biyo kasto ay soo saarto de iibisa inaanay wax horumar oo saa weyn aanay samaynin oo xitaa iska daabo baahin iyo ballaarin ay ku samayso magaalada Hargeysa in meeliyaan biyo lagu haysan biyo la gaarsiiyay waxa ceebaday intii xitaa haysatay biyo ka yaraadeen ama ay ka go'eenba maanta waxba Hargeysa isku tuurtuurmaysa biyo la'aanto cid baa biyo haysta la oran maaye kuwa hore u haysan jiray biyo ka go'een kuwa aan hore u sii haysan waaba sii abaadeenba marka waxa weeyaan dabkii Hargeysa wada saaran tahay reer Hargeysa runtii iyagoo waxba isqaybqaybinayn in magaaladoodu ay biyo hesho ha ka shaqeeyaan magaalada bariyo horada waxa lagu wadayaal bilahaan jirtay dad sharaf laba ahaayeen baahideeda ka hadli jiray mushkiladeeda ka hadli jiray imanka xaafadada yar ma la noqdo xaafaddu ku qoslaysaa marka in dadku gamcaha isqabsado mudoobo iyagoo reer Hargeysa inay ku biyo haystaan biyo ku filan helaan kuwa aan haysan biyaha la gaarsiiyo oo dadku iyagoo siman iskala gurin biyo la wada helo oo kamaal cabba oo kaan cabbin u doodo xigmadu halkaas weeye marka aad badan baa ballamo dawlad kasto halkan timaada Soomaaliland ay ballan qaadaysay sanadka dambe biyo la soo saaraya ama biyo imanaya waxba kama suuragelin ummadii sida Cabdikariim sheegayba kii xoogaaga tirinigta haysteen waa dhiban yahay kii aan weligiiba aragnay nafi kuma jirto marka waxaanu rajaynaynaa oo rajo badan ka qabnaa in dawladda cusub ay ku darsato priority-ga ugu horeeya ay noqoto biyaha sidii loo heli caasimada biyo u heli lahayd oo dadku biyo u heli lahaayeen haddii aan nahay xaafadda masallaha booyadu waxaanay horta maba helnaba dirqi baan ku helnaa booyadahana marmar iyo dhif baan helnaa waxaanu ka codsanaynaa xukuumadda cusub ee imika dhalatay in ay biyaha wax nooga qabato ay culays ka saarto madaxweynaha cusub ee Muuse Biixi Cabdi waxaanu ka codsanaynaa inuu biyaha noo sii daayo oo uu noo keeno xaafadda masallaha wax kasta baa ku baahatee xukuumadda cusub waxaan balyeeraynaa maanta waxaa weeye foosida biyo waxay maraysaa 20 shilin laga qaadanaa annaga herta aan ku shaqeyno 20 shilin laga qaadanaa waa maanta helowga booyada xaafadaha kale booyadaha lagu dhamaanayo booyada male halkan booyada waxa la sugayaa suuqii marka la hadasho ilaa tookii waa biiraad jirta caasimada waxa weeyaan biyuhu aad bay weyn marka aad eegtay booyada mooyaane lama hayo wax kale laga cabo booyada si xigay doonta oo
taangigii ambaba fastadii marka dowladdu inay aad u tixgeliso mujtamaca. mawliid maxamed siciid sam news t v magaalada hargeysa.